السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودyaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barteena bar shaybaar taasoo uga bartaan waxyaabaha la xiriira cilmiga shaybaarka magacii waa cali caamir xasan mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan please intaan u gudagelin cashirkeena waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto channelka baro shaybaar taasoo inoo noqon doonta dhiirigelin mar kale kusoo dhawaada casharadii taxanaha inoo ahaa ee ku saabsanay medical laboratory qaasatan lab instrument topiga aan maanta soo qaadan doono wuxuu ku saabsan yahay haddii ilaah yiraahdo waxa loo yaqaan autoclave sidaan hore usoo aragnay waxaan kasoo hadalnay hot oven iyo waxyaabihii la xiriiray oo aan soo sheegnay maanta insha allahu tacaala waxaan wax badan iska sheegi doonaa waxyaabaha la xiriira autoclave marka hore maxaa la yidhaha marka autoclave waxaa la yidhaahdaa is a sealed device similar to pressure cooker that kills microorganisms using saturated steam under pressure. waa aalad la isticmaalo taasoo la isticmaalo pressure loo adeegsado waxaana dishaa waxyaabaha microorganismka ah waxaan loo adeegsadaa markii pressureka lagu furaayo waxa la yiraahdo steam saturated steam ama waxyaabaha la yiraahdo qiica electric ayana ku shaqeysaa autoclave definitionkiisa intaas waa a device that kills microorganism using saturated steam taasoo loo isticmaalaa qiic aad u fara badan markii electric ahaan loo adeegsado oo koronto la geliyo sidoo kale daawada dhegeystayaal autoclave marka goorma la soo saara marka autoclave waxaa la ikhtiraacay sanadka la yiraahdo 1879 waxaana ikhtiraacay nin la yiraahdo Charles Chamberlain oo microbiologist ah kaasoo ka shaqeynaya meel la yiraahdo Louis Pasteur sidoo kale autoclave muxuu qabtaa marka functions of autoclave maxay tahay autoclave wuxuu qaadaa waxyaabaha maxaa la dhahaa lagu shaqeynayo oo sterilizationka loo baahan yahay ayaa lagu xareeyaa sterilization materials dhammaantooda gudaha loo geliyaa waana machine kaasoo isticmaalo pressure and steam waxa la yiraahdaa ama qaac taasoo maintain garaysa temperature-ka ay lahaayeen waxyaabahan iyo sidoo kale in microorganismka kuwa isboorka sameynayo in ay u diido inay ku noolaadaan waxyaabaha instrumentiga labka yaalo sidoo kale microorganismka badankood kuwaasoo germs ahaan loo isticmaalo waa lagu sterilize gareeyaa marka function of autoclave waxaa kamid ah in lagu xareeyo oo lagu geliyo lab instruments intii gudihiisa geli karto sterilization asoo sameynayo sidoo kale wuxuu isticmaalaa machine isticmaalo waxa la yiraahdo steamka ama qaaca sidoo kale waxyaabaha spore formingka la yiraahdo ama bacteriyaadka spore forming la yiraahdo sporeska sameynayo in ay disho maxaa la dhahaa sidoo kale bacteriyaadka loo garta inay yihiin germs khaasatan most commonly bacteriyaadka loo yaqaan germs inay yihiin in lagu sterilize gareeyo ayuu functionkiisa kamid ah sidoo kale autoclave waxaa loo isticmaalaa ama functionkiisa kamid ah inay sterilize gareysto dhammaan supplies equipmentiga sida waxyaabaha maxaa la dhahaa qaacoodu ama temperature-kooda steamkeedu uu la eg yahay 121 Fahrenheit ama degree centigrade daawada dhegeystayaal sidoo kale autoclave-ka sectionskiisa ama meelaha autoclave laga isticmaalo sectionska autoclave-ka laga adeegsado waxaa ka mid ah in loo adeegsado microbiology section medicine section body section ama body ahaan iyo tattooing body piercing sidoo kale in yacni meelaha lagu sameeyo tattooga dadka shaabadaha lagu sameeyo body piercing meelaha jirka qofka loo kala jeexo veterinary medicine sidoo kale cilmiga xayawaanaadka ama cilmiga xoolaha medicineka quseeyo markii yacni la daraasaynayo autoclave loo baahan yahay mycology sidoo kale fungi-ga cilmigiisa iyo dentistry-yaashan autoclave oo baahan yahay because ayaga elementska adeegsadaan dhammaan ama instrumentska adeegsadaan dhammaantood waxay u baahan yihiin in la germs dilo waqti walba autoclave marka muxuu ka kooban yahay componentska autoclave uu ka kooban yahay daawada dhegeystayaal waxaa kamid ah 3 waxaa la yiraahdaa midka koowaad pressure jump inaad barataa waa muhiim oo ogaato autoclave waxyaabaha ama componentska uu ka kooban yahay lead mid la yiraahdo iyo electrical heater mid la yiraahdo waxyaabihii korontada dabka siinaya kululeynaya saddexaas uu ka kooban yahay autoclave waxaana kala yihiin pressure jumper lead iyo electrical heater waa 3 components that maxaa la compounds autoclave daawada dhegeystayaal sidoo kale
waxa ugu muhiimsan ee aan halkan haddana ku baranayno waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo types of autoclaves, noocyada ay u qaybsan autoclaveska. ilaa ay 5 qaybood loo qaybiyaa inta aan ogahay autoclaveska. waxaa koow ka ah pressure cooker type nooca la yiraahdo, common laboratory autoclave type nooca la yiraahdo nooca labaad, vertical autoclave type nooca la yiraahdo nooca saddexaad, horizontal autoclave type nooca la yiraahdo nooca afraad, large automatic hospital autoclave type nooca la yiraahdo nooca shanaad. shantaas ayaa loo qaybiyaa ama loo ablaableeyaa autoclaveska. waa types of autoclaves. koow waxa weeyaan pressure cooker type, 2 common laboratory autoclave type, 3 vertical autoclave type, 4 horizontal autoclave type, 5 large automatic hospital autoclave type. sidoo kale maxaa loo isticmaalaa autoclave? waxa la yiraahdaa autoclave particularly useful for media containing water that cannot be sterilized by dry heat. mujadido dabcan waa dareemi kartaa wuxuu muhiim u yahay lagu yiri in meediyaha kuwaasoo wado water kuwaasoo haddana lagu sterilize gareey karin dry heat, kuleyl oo kaliya, kuleyl ama kuleyl waxyaabaha qaleelka ah kuleylkiisa loo adeegsan karin ayaa loo isticmaalaa autoclave. waana water media containing water ayaa loo isticmaalaa. sidoo kale waxyaabaha autoclave loo adeegsado oo lagu sterilize gareeyo maxaa ka mid ah? waxaa lagu sterilize gareeyaa autoclave surgical instruments, qalabka lagu sameynayo qaliinka, culture media, qalabka loo adeegsado in waxyaabaha bakteeriyaadka lagu culture galeeyo, autoclave plastic container, waxyaabaha containerska lab instrumentiga kamid ah labka dhex yaalo plastic tubes and paper tubes. sidoo kale tubeyada plasticada ee bacda ka samaysan, caaga ka samaysan, iyo tubeska bebetyada ay leeyihiin haday ahdaan yellow tube ama haday ahdaan blue tube. solutionska iyo water waxyaabaha loo adeegsado waa lagu sterilize gareeyaa autoclave. sidoo kale biohazardous waste, waxyaabaha hazardska ah ee biological things ka yimaado wastiga ay leeyihiin waa la iskaga sterilize gareeyaa. sidoo kale glassware autoclave, sidoo kale waxaa lagu sterilize gareeyaa glassware-ska. marka intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo cashirkeygii. daawadayaal dhageystayaal, haddii ilaahay yiraahdo autoclave wax badan oo inta information ka badan ayaa oo halkan lagu soo koobi karaa ayuu leeyahay. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah in ay tahay autoclave aalad kaasoo disho microorganismka, waxaana isticmaashaa saturated steam ama qaac fara badan. sidoo kale waxaa la ikhtiraacay sanadkii 1879 waxaana ikhtiraacay la yiraahdo Charles Chambers. functionkeedu waxaa kamid ah inay sterilization ku sameyso materialska sida ayna tahay machine kaasoo isticmaalo steam ama qaac wax la yiraahdo temperature gooniya ay leedahay. microorganismka qaarkoodna temperature gooniya ayay ku dishaa oo la gaarsiiyaa. sidoo kale autoclaveka waxyaabaha sectionska laga isticmaalo waxaa kamid microbiology, biology, tattooing, veterinary medicine, mycology, dentistry iyo body piercing. sidoo kale waxaan sheegnay in autoclaveka uu la ka kooban yahay 3 components: pressure, lead iyo electrical. sidoo kale typeskiisana waxaa waaye pressure cooker type, common laboratory autoclave type, vertical autoclave type, horizontal autoclave type iyo large automatic hospital autoclave type. useskiisana waxaa kamid ah in loo adeegsado waxyaabaha dry heatka aan lagu sterilize gareey karin oo maxaa la dhahaa in lagu sterilize gareeyo sida media containing water, waxyaabaha waterka maxaa la dhahaa mediaha leh oo kale in loo adeegsado sababtoo ah dry heat ayaga looma isticmaali karo. maxaa la dhahaa autoclaveka waxyaabaha loo isticmaalo ama qalabka loo adeegsado waxaa kamid surgical instrument, culture media, autoclavable plastic containers, plastic tubes and paper tubes, solution and water, biohazardous waste iyo glassware. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo. waa mahadsantihiin. intaana ka bixin please waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe inoo saartaan channelkan. waa mahadsantihiin.